halkani waa raadiyo Hirsamo astaantan inta badan dhagihiina soo gaaraysana sida caadada ah waa barnaamijkeennii aad ku xiisaha badnaa ee kaabaha odoriska oo aan ku soo gudbinno waxyaabo kala duwan oo bulshada hankooda belaya. raadiyo Hirsamo warbaahin fiican oo fariido la yaqaano ummadda wax fiican u gudbiso. alla ilaahay waa Hirsamo kolkaan dhageystaba alla ilaahay waxaan hibadaa oo aan weliba hamuun qabaa inaan mar walba aan dhageysto Hirsamo idaacad jirta weeye bulshayahay ha moogaanina. bisinkii burda abartii xumada cajuusada ee maanta way bagabiyaysaa maxaa ku hela maanta waad bagabiyaysaa warigaha waad waalan tahay geedii xumo qaabka daran kale inaynu is eegno bedelkeena soo kama wanaagsan in raadiyo Hirsamo aan ammaan kaa galaan iskaga ammaan waraa waynu ammaanaynaa Hirsamo ma dhageysataa adigu si fiican Hirsamo 24 saac online baan bakaa xitaa haddii ay lacagta iga dhamaato intaan ku shubto baan YouTube-keeda channel-keeda intaan gala baan barnaamij walba idaacadaasi ay soo dhigto sidaan u dhageysanay bay lacagta iga dhamaan haddana waan ku shubay wallahi Hirsamadan cajaa'ib wey. wareede taa waxaa kaaga daran ma garanaysaa idaacaddu waxay leedahay page raadiyo Hirsamo liidaad wiilaan ayeeyo ah siduu Facebook u galo page-keeda maalin waliba wuxuun bay soo dhigayaan buu yidhaa markaa buu siduu comment like share siduu ugu wado waaba kaayo Hirsamo baaban ka fujay waa page-keeda. wareede idaacadan gebi ahaan wayba gelgelishay waan filayaa in baraha bulshada caadi maaha Hirsamo. dhegeyste waxaynu kuu soo gudbinaynaa caqabada guushaada xanimi karta oo dulmar kooban ku sameyno waxaana ka mid ah hadaf la'aan, qorshe la'aan, dheelitir la'aanta nolosha, maarayn la'aanta waqtiga, aaminaada guracan ee taban, duruufta iyo ku marmarsiyeedkeeda, curyaamiyaasha ama waxa loo yaqaano hanjibayaasha oo ah wax guushaada inta badan jibinaya iyo dhibaatooyinkooda. xumaan saasiga sidoo kale qayb ayuu ku yahay iyo hiddidiilo la'aan. haddaba dadka xiiseynaya eena page-keena raadiyo Hirsamo waxaynu ku wargelinaynaa in goordhow aanu bilaabi doono barnaamij aan ugu magac darnay live show. barnaamijkan live show Hirsamo waxaan ku soo bandhigi doonaa waxyaabo kala duwan oo ka mid ah nuqulkiisa. wareey asxaabta galabkan aad bay u badan yihiin bisinkii burdaha imise qof hadda wuxuu leeyahay waxbaa ka dhacay wallahi wayba sii badanayna asxaabta inaba caadi maaha. galabkan live show Hirsamo ayaa weli naga daawanaysaan waana idaacadateen Hirsamo. sheekadaada daaqada wararkan dhegeysta dadka live-ka soo gala waystaa waa tahay qodobkeen maanta aad buu u xiisa badan yahay dadka live-ka soo galayna aad bay u badan yihiin. barnaamijka live show Hirsamo waxaad goordhow kala socon doontaan isla page-keena radio Hirsamo aynu toos ah usoo gali doono live-ka isla markaana dabinta tooska ayuu noo noqon doonaa waxaana ku soo qaadan doonaa badi barnaamijkan qodobyo kala duwan oo dhalinta markaasi xiiseynaysa ee ku xiran page-keena radio Hirsamo aan usoo bandhigi doono. balanteenu waa live show Hirsamo. waslaale dibir iyo cudud midkii la jiifa kii doonay halaya waa kaasaa waa tahay sidaashaasi inka badan ba adinka falanqaynteeda laydinka rabaa live show Hirsamo ha mogaanin. hadaf la'aantu waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka hore u sii jibinaya ee guushiisa caqabad u keeni kara. qofku hadduu ku fikiro sidan oo kaleeto muxuu asaagay u hormaray anna aanu dib dhacay. haddaba dhegeystaha qiimaha badanu ma dhacdaa inay ku soo maraan habeenno, maalmo, asbuucyo iyo bilo kala duwan oo aad weli adigii tahay
waxna aanay iska kaa beddelin. ma dhacday inaad sanad ka hor aad qiimaysay heerka aad maanta joogto, ha ahaata dhanka aqoonta, dhaqaalaha, cibaadada, dhaqan wanaagga iyo wixii kaloo la halmaala. natiijadii kuu soo baxday ma noqotay inaad meel ku qoratay maanta oo aad barnaamijkan la socoto? qiimayn labaad ma isku samaysay? maxaa iska kaa beddelay? ma horumartay mise hoos ayaad u dhacday? ma isweydiisay weligaa su'aalahan noocan oo kale? maxaa asaagay u horumaray oo aan meeshaydii u taaganahay? muxuu saaxiibkay u horumaray aanna meeshii taagay? maxaa noloshaydii ka dhigay mid isku mid ah maanta? shalay ayay la mid tahay berito maantana ayay la mid noqon. maxaa sababay inaan saas noqdo oo aan tallaabo horay ugu qaadi waayo? maxaa noloshayda ka dhigay mid ah giraangir wareegaysa oo meeshay shalay taagnayd beritana ku soo laabanaysa? xiiseeye su'aashaas iyo kuwa la mid ah ka ah waxaa keena ama sababa in qofka qabsadaan oo ay ku habsadaan hal shay oo ah inuu qofku ku noolaado nolol ku aslaytaysan in hadaf la'aan, ulajeeda la'aan, qorshe la'aan. inay noloshaadu saas noqoto waxaa keenaya dabar xoog weyn ayaa kugu xiran. dabarkaas oo ah higsi la'aan. haddii aynaan hadaf yeelan sidee nolosheenna noqonaysaa talow? haddii nolosheennu hadaf la'aani noqoto waxay noqon mid ku astaysan mushkilad ha kuu dhiibto, halka dadka noloshoodu ku dhisan tahay yoolal iyo hiigsiye ay hiigsanayaan ay tahay fursad ha kuu dhiibto. nolosha aan ku qotomin yoolal la hiigsanayo waxa weeye nolol ku tilmaaman jahwareer aan lahayn meel looga baxo. hijrafatu hirsamo mawdi bergaasiye. laanta afka bargaasaha ee Hirsamo Radio. kula turluliwane oshumuka kufi simbahata korajiya ula holulu birmafi yujla unil bej radio Hirsamo. waxaa looga hadli doonaa shaxda cusub ee inoo gaarka ah. dad badan ay la fajacayaan dhaqdhaqaaqa aanu ku soo qaadanayno channelkiiyo page-ka radio Hirsamo. kulambay saxsatu ku yubi leebti Hirsamo. dulka maqalkana amaahiya macluumaadka ee quseeya barnaamijkan ku baxaya luuqadda bargaasaha. lashra maskey yana hero mete ee karo mala frisin juli karambisiintene tula arobo wakarashon tere ke Hirsamo bargaasi oo loo kombination tu kurumba fasi atre mikle abrashon barfsi. shuruudda uu leeyahay yoolka ama higsiga fiican. yool cad oo aan mugdi iyo humaa ku jirin, yool go'an oo aan baahsanayn, yool xambaarsan himad iyo himilo sare, yool la qiyaasi karo inta lagu guulaysan karo iyo inta lagu guuldaraysan karo, waafaqsan diintaada iyo dhaqankaaga suuban, yool dhawoobi kara lana gaari karo, xaqiiqoobi kara, yool suurtagala oo bini'aadan ka dhici kara, awoodadayna la eg. hadday dhacdo wax aanan bini'aadanka samayn karin waan samaynayaa aad tiraahdo, way adkaanaysaa in yoolkaasi aad hirgeliso. tusaale waxaa kaaga filan waxaa tiri halka dadku bini'aadanka ay ku nool yihiin beriga, anigu waxaan ku noolaanayaa badda oo waxaanba ka dhiganayaa nolol halka ay nolosheedu ku qatanto. taa way kugu adkaanaysaa waayo yoolkuuma noqon karto, mana jiro qof bini'aadan oo badda ku noolaan karo. way ka dhigantaa yoolka inuu dhawoobi karo lana gaari kara, xaqiiqoobi kara, oo noqon karo yoolka inuu yahay yool suurtagal ah oo bini'aadanka ka dhici kara, awoodeedana la eg.
sidoo kale waxaa layidhi in yool waqti leh oo waqti loo asteeyey lagu soo afmeero. dabcan yoolkaaga waa inuu noqdaa yool waqti ku astaysan oo waqti loo go'aamiyey ama loo asteeyey oo lagu soo afmeero. aad tiraahdo haddaan heerkaasi gaaro wallahi waan ka guulaystay yoolkii aan markaa kaga baahnaa oo kale. haddaba maxay yihiin waxyaabaha ama waxyaalaha inoo suurtagelinaya in aan ka salgaarno hiigsiyadeenna? haddaba waxaad suuraysataa dhegaystow hadafkaagii oo dhawoobay, xaqiiqana noqday. diyaar u noqo inaad mas-uuliyaddeeda qaaddo natiijo kasta oo ka dhalata hiigsigaaga. sidoo kale ku adkay hadafkaaga wanaag saadsi ama ka soo qaad inaad gaartayba oo xaqiijisay. waayo haddii aad tahay qof hadaf leh oo aad iska yeesho inaad macnaha aad inta badan si qaldan aad niyaddaada ku qufisho oo tiraahdo walle tani inaan ku fashilmaya ila tahay, alla tani maahan heli karaa. haddaad tiraahdo kulleyba hadba niyaddaada uun siday noqoto uunbaad adna ka warheli doontaa. marka sembir waxaa wanaagsan haddii aad hadaf leedahay inay macnaha hadafkaaga wanaag saadsi ama ka soo qaado inaad gaartayba ood macnaha marxaladeedii aad ku sugan tahay. sidoo kale u dhaqaaq dhanka hadafkaaga adigoo uu kaa buuxo iimaan iyo aaminaad aad aaminsan tahay ahmiyadda uu leeyahay hadafkan aad higsanayso. dabcan maalin walba tallaabo horay u qaad aad uga gol leedahay inaad u dhowaato kasalgaaridda hankaaga. kala daran xiisayaasheena raadiyo Hirsamo oo marba marka sii dambaysa xadhkaha furanaya si ay u noqdaan dad inta badan la socda bandhigyada ayaa markana raadiyo Hirsamo waxay bilowday guga maanta. cajiib dad baaba imika dhakafaar dartii dhafooraha la qabsaday. tolow guga maanta muxuu yahay? guga maanta waa barnaamij xiiso badan oo looga hadlayo arrimaha fanka, nolosha iyo jacaylka iyo farqiga u dhaxeeya fanaaniintii hore iyo kuwa maanta. kama marna sidoo kale gogaalaysi abuur oo lagu tijaabinayo qofka dhagaysanaya barnaamijkan heerka uu garashadiisu gaarsiisan tahay. intaana kuma koobna sibaaxdiisa ha yeeshee saaxiibadeena Hirsamo ayaynu isleenahay bal ha ka hor dhicinoo ayagu uun ha garteen qiimaha guga maanta uu yahay. haddaba barnaamijka guga maanta waxaad kala socon kartaan beejka idaacadda iyo channelka raadiyaha ee Hirsamo Radio. raadiyo Hirsamo, hirka nabadda guusha. ugu dambayntii waxaynu soo qaadanaynaa ahmiyadda ay leedahay inuu qofku hiigsi yeesho. waxaana ku soo koobaynaa 3 ahmiyadood oo kale ah xakamaynta nafta, kalsoonida nafta, ku raaxaysiga nolosha. haddaba xakamaynta naftiga waxay ka dhigan tahay inaad leedahay qorshe degan, barnaamij nidaamsan isu dheelitiran oo sabab u noqon kara kasalgaaridda dhammaan yoolalka qaybaha kala duwan ee noloshaada ku xeedhan. taas oo ku fududaynaysa inaad noqoto qof maamuli kara habdhaqankiisa, awood u leh maaraynta iyo ka gudbidda caqabadaha kala duwan, ku soo food saari kara inaad ku jirto noloshaada adduunyo. waxaad ku sifoobaysaa oraahdii uu yidhi faylasuufkii caanka ahaa ee Aristotle oo uu ku leeyahay maxaa ka macaan noloshaada markaad xaqiijiso shay dadka intooda badan ay u haysteen inay samayntiisa mustaxiil tahay ama ay adag tahay. dabcan barnaamijkeenni kaabaha oo dariska halkaa ayaynu ku hakinaynaa oo aan maanta qaybo kala duwan oo ku saabsan caqabadaha guusha aan kaga hadalnay. qaybahan kaleeta inoo soo socdana barnaamijyadeena dambe ayaynu ku soo qaadan kar doonaa. waxaadna kala socoteen idaacadda tan Hirsamo, raadiyo Hirsamo, hirka nabadda guusha. fadlan haddii aad barnaamijkan aad kala socotay channelka ku soo biir oo subscribe kadibna furo gambaleelka halkaa kaaga muuqda. sidoo kaleeta haddii aad barnaamijka kala socotay beejka raadiyaha ee raadiyo Hirsamo, like saar haddaad ku cusub tahay barnaamijkan. sidaa iyo nabadgelyo. raadiyo Hirsamo, hirka nabadda guusha.